Fazendo respirar, então بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبلها يويلشا دمر كي يرقى لما أنت كان قيمها بدن قولها دحي حسبك كلمية قيمه سكر الدول هديت هاي هوجانكا هديت هاي جديد فليتا يا هديت هاي قولها دحبا دمانتين واني بسلامي إلهي waxaan ka baryayaa kulankan kulamo kale oo la midana inuu inagu kulmiyo farxad weyn bay dhamaanteen inoo tahay maanta waa maalin weyn waa maalin qaali ah waa maalin aynu hawl weyn oo qabiye inoo ahayd aynu dhamaystiray ilaahay baynana u mahadnaqaynaa alxamdulillah baynu leenahay ilaahay wuxuu yiri la shakartum la aziidanakum hadaad igu mahadnaqdaan oo ii shukri noqdaan waan idin siyaadinayaa waxaynu ilaahay leenahay ilaahayow نشكر لك ونكون مهدنقنا وحنو كاغا مهدنقنا نعموين كبدن ايدنا سيسي يا عافماتو كميدي هاي اي نبدقليدو كميت هاي اي دولدنمدو كميت هاي اي كميت هاي مناسبة غالية اينو مانتا يسوغوني من حسبك كلمية قول كلمية مركي كوباد وحنو مهدنقيا هوغانكي قولها دحيكو ميلغار كاها اي هاوشان سو ودي مددا waxaan leeyahay جزاكم الله خير hawl weyn ayaad soo qabateen saddexdii xubnood ee qaaliga ahaa Muuse Salaf Cabdikariim Xinif iyo Xirsi Cabdilaahi Xirsi waa hogaankii ku meel gaarka ahaa ee soo waday muddada 6 bilooda hawshan maanta aynu ku guuleysanay aynu dhameystirnay dhanka kale waxaan u mahadnaqayaa hogaanka cusub ee la doortay iyagana waxaan leeyahay ilaahay hayduku asturo xilka cusub ee maanta la idin doortay hogaanka golaha dhexe ee cusub saddexda xubnood oo saddexdii xubnood ee hore uu bedelay xubintii gudoomiye ku-xigeenka walaalkeen Cabdikariim Maxamed Xinif oo inuu mahadnaqayno aasaasiyaashii xisbigan kamid ahaa howlo waaweyn xisbigan ka soo qabtay waxaynu leenahay isagana jazakallahu khayr xubinta cusub ee soo biirtayna waxaan leenahay ilaahay ha kuu fududeeyo hawsha dhanka kale waxa farxad weyn inoo maanta كو إننا دورناي هوجانكي قولها دحية عصبة لبا إننا أصحناي حبنيه قولها دحية عصبة كوي مد بركودنا بدل كاي كوي مادين يحبنا بنيي بركودنا كوي مادين حبنا عصبة قلب تشوق يقول تشوق با دانك كله وحين ما أنت كقول يسني أو يضنا إنه صفة الشرعية هي أو إنه أصحناي مرشح مدحوينه حزبنا كل مية دورتها صوص عطا مدنة مجاهد محمد كاهن أحمد صعب كان لوتمو قولوا دنك كلا وحي ناصحني مرشح مدحوينه كحجين دورتها صوص عطا ولكن قال إنه حزبك كل بيد بدك كلا سو شقي ما أنتكم عصب حزبك سديدي طبنكي لبدي يكون سديدي طبنكي أيون نقضي حبين قولها دحى حزبك ولكن محمود عبد الله دكتور شينه سودو همبلياي نولانا لبدينا مرشح محمد ولا محمد كاين احمد مرشحين مدحوينه دورشد سو سقطا iyo محمود عبد الله الشينه ومرشح مدحوينه كحيينه قول بين ورجينا inay guuleystaan Soomaha guuleysta baydu leenahay Soomaha كلمية وحكوس سنتيه هاي جولة بدن إلهي بدك جولة بدن وضبنا وكيني دونا لما دي يكون يطبن كي بيه هاي مركي نكو جولة سنة دور شدي كوبادة مدحونها تيلا بعدنا واحد لما دي يكون يطبن كي تصدق حدا واحد نقدر تاني نكو جولة سندونا لما دي يكون يسقالي لما تنك هدي إلهي راهو كلمية جول سوما أنت هدام كده فو صدح ذا قلب ومهم سنة نكو أصحنا الشركة نقولها دعاء الصفة الشرعية نكو أصحنا وصدح ذا قلب شيء أنت واحدين حزبك كل مية سالو شيء وحزبكونا وحزب مدرس سوتري وحزبي ضد بدن أو مقعلة أو حزبكا أساسياشي سي أو وهرية أساسي كوبادة حزبكا مدن أحمد محمود سيناي لها قبل هون ورا إلى هاي سنة الفردوس هجليه وأساسياشي سي كمدها أحمد حوني وهرية حزبكا كصوب حي iyo xubno badan oo muhiim aha
oo xisbigan xilal badan ka soo qabtay oo halkan magacyadooda laga tiriyay walaalkii Cabdikariim ka sheegay waynu u ducaynaa dhamaantood inta inaga hooseysa inta nool ee xisbiga magaca weyn ku leh ee xilal waaweyn aan kaba qabanna iyagana waxaanu leenahay hambalyo xilalka aad qaban weydeen rag iyo hablo idinka tirsan idinka mida ayaa xilka idin haya idinna qabtay idinkana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr hadal badan maanta oran maayo laakiin laba saddex qodob oo kooban baan oran kow xisbiga kulmiye oo xisbi weyni duruufo kala duwan buu soo maraa marar badan gaar ahaan xilliyada isbedelada loo baahan yahay ama hoggaankiisa iyo murashaxiintiisu ay soo baxayaan mar walba waxa yimaada xaalad dad damac leh dadka damac leh oo xaq u leh inay damaca yeeshaan hase yeeshee gari laba nin kama wada quslisee cid unbaa guulaysataa marka kulmiye wuu soo maray madaxin noocan oo kala oo hore oo badan waynu goobjoog in badan oo inaga mid aynu u nahay 2002 asaaskiisii 2003 markii murashax madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen la dooranayay sidan oo kale golihii dhexe ee ka dhacay guriga hay'adda shaqaalaha aad baa loo xasuustaa raggii bariga joogay sidaas si lamida xilliyadii ka dambeeyay ee murashaxiintii ka dambeysay soo baxaysay way soo kulmiye uu soo maraa xaalado ragga damaca lihi ay isjiidaan laakiin wuxuu ku dambeeyaa guul iyo isafgarad iyo gacantooda isqabsado maantana waa tii uun kulmiye kuma kala taga xaaladaha adag kuma kala tago waxyaabaha qaarkood oo laysla ay afkaartu kala duwanaato kuma kala taga kulmiye damaca ragga qoodha iyo hablaha damaca leh ee wax doonaya halkan ay ahayd 2008 markii ay ku tartantay walaashay basbaaso ee la tartantay Allahu naxariistay kayse ay dirqigu ku sigtay kayse inay ka badiso shirkan oo kala aha marka walaalayaal kulmiye waa ka kulmiye maraxisha oo soo maray adag oo u taagan yahay kulmiye axsaabta qaranka ee maanta jirteen xisbiga ugu daaweyn ahaa xisbigii ururada siyaasiga ah ee 2002 markii la aasaasay kii ugu dambeeyay ee la aasaasay kuna soo baxay kaalintii labaad isla sanadka 2002 intii ka dambeysayna laba jeer ku guuleystay inuu noqdo talada dalka uu hayo maantana uu yahay xisbi mucaarada oo adag oo toosinaya xukuumadda maanta jirta qaladaadkeeda iyo wax kasta gasho toosin doona toosinayana qarankana dhisaya oo ku dhisaya halgankii uu soo galay iyo taariikhda uu ku leeyahay iyo weedada uu u socdo dalkani oo aynu aqoonsi helo oo maantana wadankii koowaad ina aqoonsaday wadamo badan ayna aqoonsan doonaan wuxuu taagan yahay kulmiye xoreyntii dalka wuxuu taagan yahay kulmiye dimuqraadiyaddii dalkan wuxuu taagan yahay kulmiye axsaabtii qaran ee halkan ka aasaasatay wuxuu u taagan yahay kulmiye wadankan horumarkiisa iyo aqoonsi u raadintiisa wadamo badan oo kale wuxuu taagan yahay sixidda kolba xisbiga talada dalka haya marka aanu isagu hayn waad ogeydeen 2002 laga bilaabo ilaa 2010 uu talada ka qabanayay mucaaradada adkeeda xisbiga kulmiye 14 sano ka dambeeyay wuxuu hayay talada dalka maantana waa xisbi mucaarada oo noqonaya ahna xisbiga koowaad ee mucaarada talada dalkana qaban doona xilli dhow hadii la hayraahdo dhamaanba xubnaha golaha dhexe xisbiga kulmiye taageerayaasha xisbiga kulmiye gudaha iyo dibadba dadka kala duwan ee dibadda ka yimid ee u yimid shirkan iyo guusha xisbiga oo aan hambalyeeyo waxaan leeyahay xisbiga kulmiye looga biqi maayo wax yar oo basiid oo khilaaf oo gudihiisa yimaada uu xalistaa waxaanu ku xalistaa si wanaagsan wuxuu ku dhamaystaa wadada aynu hayno ee inaynu sharciga raacno wuxuu ku dhamaystaa in la isku tanaasulo wuxuu ku dhamaystaa kacadooda in dib loo soo qabto wuxuu ku dhamaystaa in gacmaha hableeyo wiilalba la isqabsado lama waayo meel ay shaqo ka jirto in la isjiirjiida lama waayo meel ay shaqo ka jirto in wax la isla seegi waayo lama jirto meel ay shaqo ka jirto oo waliba xisbi adagoo kulmiyo kaliya uu ka jiro in ay timaado isku dhac iyo waxyaabo la isla garan waayo hase yeeshee laguma kala tago maantaanay ka muuqataa xisbigii kulmiye golihiisii dhexe inuu si wada jir ah oo gacmaha is haystaan ku asixiyeen murashaxii madaxweyne ku-xigeen guul kulmiye taasaynu ku wada soconaa waxaynu ku wada soconaa oynu ku wada soconaynaa inaynu dadkeena isku soo wada duno dhammaantood inaynu intay naga leexsan soo duno inaynu isku caqli celino inaynu gacmaha isqabsanno inaynu isku dulqaadanno inaynu isku sabirno aad iyo aad bay farxad igu tahay
همبليان ليهاي وحين وصعنا ودك سوماليلاند oo adduunka kamid noqda uu kamid noqday meelka way gaara Somaliland oo calankeedu UN ka u joogo ayaynu u soconaa kulmiyana ilaahay damkii ka gaarsiinay way waa ka markoona halkaas soo gaarsiiyay inta harsanna dhameystiri doona hadii ilaahayda aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhamaanba golaha dhexe xisbiga kulmiye guul iyo gobonimo leeyahay gacmahaynu isqabsanaynaa waxa yar gudaheena yaalaana si fudud bay ku dhamaanayaan aad baad u mahadsantii wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh